Beertani waxaa lagu magacaabaa Central Park. Waa intaas sawirka ka muuqda, waxayna dhacdaa gudaha New York, waana mid ka mid ah goobaha dalxiiska ee ugu caansan dunida. Waxayna ka weyn tahay beertani guud ahaan dalka Monaco oo Yurub dhaca. Monaco waa dal magaaleed city-state ugu yar dunida, sidoo kale waa dalka labaad ee caalamka ugu baaxadda yar. Waxaa la tilmaamaa inuu yahay dal dadka ku nooli hodan yihiin. Waxaa ku nool 38,000 oo qof, 12,000 oo ka mid ah dadkaas waa milyaneeriin, taasoo ka dhigan in 3 meelood meel wax ka badan dadka ku nool Monaco 32% ay milyaneeriin yihiin. Waa dal ay qaali tahay noloshiisu. Halkii meel ee labada cagood la dhigo oo ka yar xabad mutuleel ama marmar ah waxaa lagu qiimeeyaa lacag $5,000 ah. Qofka doonaya inuu iibsado qol oo seexdo oo jiifka ah, lacagta ugu yar waa 1 milyan iyo bar wax ka badan. Guriga caadiga ah qiimihiisu waa inta u dhaxayso 4 milyan ilaa 22 milyan. Kuwa ka sii qaalisan way jiraan. Dadka reer Monaco ee muwaadiniinta ah 9,000 oo qof baa lagu qiyaasaa. Inta kale oo dhan oo ah 74% wax ka badan waa ajaanib ku nool dalka. Dakhliga soo gala muwaadiniinta dalkaas sanadkii waa 165,000 celcelis ahaan. Qofka Monaco ku nool ee ugu hantida yar celcelis ahaan waxa uu haystaa 2 ilaa 3 milyan. Kuma jiro dalkaas yar xadida faqrigu oo waa hodan dadkiisu. Monaco waa dal ay ku nool yihiin celcelis ahaan dadka ugu cimriga dheer. Dadka waddankaas ku nool cimrigoodu waxa uu gaaraa ilaa 85 sano. Waxa uu hooy u yahay bilyaneero badan oo dalalkooda ka yimid oo halkaa ku nool. Nidaam ahaan waa dal boqortooyo ah, kaabiga ku haya Faransiiska, gaar ahaan xeebihiisa koonfureed ee Mediterranean-ka. Faransiis baa looga hadlaa, asigaana ilaaliya dalkaas yar difaaciisa. Dalka ayna ka soo sheekayay ee barwaaqo sooranka ah waxa uu ka yahay beerta sawirkaas ka muuqda. Waxa uu la eg yahay 60% dhulka beertaas. Waxaa laga yaabaa hal qof oo ku nool dalkaas inuu gebi ahaan beertaas dalka uu ku nool yahay ka weyn gadan karo. Kubadda cagta, maadaama uu hal magaalo yahay, tiimka ka dhisan ee Monaco FC waxay ka ciyaartaa horyaalka Faransiiska.